بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميلاد joogtaan bawalaalayaal ku soo dhawaada barnaamijkii baradintaada maanta waxaan ku suganahay magaalada Sheekh dadweynaha degan deegaankan ama magaaladan ayaa waxaan weydiinaynaa su'aalo diiniya hadii ay ka jawaabaan waxaan siinaynaa insha Allah taala hadiyad qaaliya hadii ay garan waayaan sidoo kale hadiyad kale ayaan siinaynaa barnaamijkan waxa weeyaan waa barnaamij dhiirigelineed imika waxay la taagan Cabdulqaadir Xaaji Cabdullaahi Diiri waxaan ninka dariiqada xukuma magacayga Cabdulqaadir Jilaani baraha Cabdulqaadir Jilaani bay la taagan imika ma sha Allah soo dhawow waxa aan ku weydiinayaa adeer su'aashan fidyada waa taqaanaa Soomaa fidyada la bixiyo bisha Ramadaan fidyada waan bixiyaa dadka aanay soontu ku waajibin ee fidyada laga bixiyo inoo sheeg garanay adeer wad garanaysaa ku celi dadka waxa jire dadka xanuunsanaya iyo dadka buka iyo dadka xabahay ma dadka aan waxba haysanin ku waajibaysaa dadka buka waa sax qofka kale isagana aan ku waajibin maskaxdiisu dhiman tahay waa ka maskaxdiisu dhimantay uu saxay waa lagu siinayaa hadiyadiisi waa la siinayaa Cabdulqaadir Jilaani waaya soo si hadiyadiisi war qaadanay waa lagu siinayaa إله الدين كذا وقرقة آمين آمين دعاء شيخ الحمد لله رب العالمين إله الدولة دي تتكبرنا حقاش إله وابلها هاي الكاعة سعرت له إيه سينا هذا هو إله وايه إله تتك هذا كمان قال كان الشاشة كان فراك قاد يا كلا قلي ومن إنما ذا قبلها كم تشرنا يدو وايو يا دينته ما يدينته هو ما وحوي إنما ذا بلويديه أنا ما كتيرين تمر كم تشرنا وايو تمر كوي كا قم بديه هنو وكرنا يا شديد وحبوا يصح يا دين توانا لقى قاضية ما كتيران صوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعول عبد الحكيم محمود جامع عبد الحكيم وكسر دو برنامج برندين هذا إن شاء الله سؤال ديني كويدينية هدية كجوابته وحنقصينية إن شاء الله تعالى هدية وناكسن سؤال كويدينية واحد شاقيسة صلاة الله يقانو صلاة الأوابين ما مغشرت صلاة الأوابين صلاة الأوابين ها ما يمان وصلاة لتكدو صلاة لتكدو ويان أوابين waxa looga jeedaa macnaha dadka daacada Ilaahay maaragtay adeecay Ilaahay adeecay khushuucda badan ayaa tukada salaada waa salaad saxwi shanta salaado faralka midna ma aha waa salaad sunnah waxa weeye salaad sunnah waa dadka Ilaahay adeecay tukada iminka salaada la tukada ma taqaanaa nawdan iminka qoraxdu ina hayso waa salaad duha la dhaaf salaad duha ma loo yaqaan salaatu lawaabin ma sha Allah hadiyadaadii aan ku siinayna hambalyo qabso marka anaga lacagta maxaad nooga qaadisay bilaanu garana ku guuleysanay inta laga السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعدر. محمد عبدي وكسر دو برنامج كبردين هذا وحن كويدينيا إن شاء الله سؤال ديني كويدينيا سؤال شو سوى تاهي مقرن صحابي جدي لي بين عليه لو يقاني مسلمة الكذاب. ورث مسلمة ما مغش. نيكي نبني ماذا شيكتي. نين بدري صحابي أفريقيانها نين مدوها مقرن وحي بدري. محل نيشري. وحش. ورديس. وحش ما وحش ده وحش وكا وحش بدري همبليو لباح وتكيسو صارتي مقعد قرطنو شغاده محمد عبد يوسف محمدو صدورت برنامج برنامج في عون الله وتكون فرحسنتي هاي واي واضح كوان بلينا بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله ورحمه الله وبركاته والله المقعد رضوان محمد عبد رضوان محمد عبد رضوان oo ku soo dhawo barnaamijka baradintaada su'aal diini lagu weydiinaya su'aasha ku weydiinaya waxa weeye masaajidka xaramka waa taqaanaa Soomaaliya salaada lagu tukado imise u dhigantaa salaada xaramka lagu tukado salaada xaramka lagu tukado inta u dhiganta ma garanaysaa waxa u dhigantaa qof tukanay 100 sanadood 100 sano horta 100 sano waa ku dhowdahay laakiin waa salaad aad u fara badan salaad ahaan inta u dhiganta sanadka maaha laakiin tira ahaan salaada inta u dhigmayso ma garanaysaa wallahi tira ahaan aad u badan inta u dhiganto waa ilaa adigu
10,000 ragcadood 100,000 ragcadood meelaha yaa 100 ragcadood ilaa imisa ilaa 100 ragcadood ilaa 100 ragcadood waad yaraysay soo kitaabka dhib male tira waa aad u badan tahay salaad hal salaad hadii ilaahay ku kulansiyo xaramka waxa way u dhigmaysaa salaad aad u badan aad iyo aad u badan tira aad u badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala hina waafajiyo haalay yaryarka loo baahan yaryarka soo koraya ee la rabo inay diinta bartaan assalaamu calaykum adeer calaykum assalaam magacaada jamaal ku soo dhawow barnaamijkan baradiintaada insha Allah su'aal diini lagu weydiinaya haddaad ka jawaabto hadiyad wanaagsan ayaa lagu siinaya insha Allah ta'ala su'aasha ku weydiinaya waxa weeyaan ma garanaysaa ninkii nabi maxamed u bixiyay fircoonka ummadda nabi maxamed fircoon soo garan maysid fircoonkii ummadda nabi maxamed ma taqaana waa nin gaala oo shar badan oo nabi maxamed uu yiri kani waa fircoonkii nabi maxamed musaylama ma waa nin la dilay dagaalkii badar baa lagu dilay nin aad u dhibi jiray nabiga mad garanayn oo gaal ahaa oo nabiga aad maaragtay u dhibay abulahab ma laakiin waad soo dhaweysay ilaahay ku barakeeyo waxa ku siinayna hadiyad kale aan ku siinaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku barakeeyo hambalyo way galisa mid basiidan ku helaya wuxuu wada basiida wada fudayde Allahu akbar assalaamu alaykum warahmatullahi walaal magacaaga Yaxya Adfaara Yaxya ku soo dhawow barnaamijka baradiintaada su'aal diini lagu weydiinaya su'aashaas waxa ay tahay ma garanaysaa fidyada bisha barakaysan ee Ramadaanta la bixiyo qofka ay ku waajibto fidyadaas inta laga bixinayo ma garanaysaa waxay ku waajibtaa qofka waxaysan qofka xanuunsanayo ma qofka xanuunsanayo ku waajibtaa laakiin inta uu bixinayo raashin buu bixinayaa Soomaa raashinkii maalintii uu bixinayo 30 maalmood waa inuu raashin bixiyo Soomaa maalin walba marka raashinka maalinta uu bixinayo waa mis raashinka waa mis kiilo gram gare wardiisay waxaan filayaa waa 7 gram bilaa 7 gram fidriga Soomaa fidrida qof weyn oo xanuunsanaya ma soomi karo wuxuu bixinayaa bedelkeeda fidya raashin qof qoodinay ayuu ku bedelayaa marka qiyaas ahaan intii uu bixinayay ayaa la rabaa qof wuxuu awoodo bixinayaa laakiin san waxaan bixin lahaa wixii daan awoodo ma tira cayiman baa la sheegay tira cayiman baa jirta hambalyo waad isku dayday qofka iska bixinayo in soo dagaasho ma fidriga ma wuxuu bedel buu qof caafimaad qabo wuxuu ku bedeli waxa ku waajiba ya bas anta la su'aal السلام عليكم عليكم السلام magacaada Ahmed Balera Ahmed ku soo dhawow barnaamijka baradiintaada su'aal diiniyan ku weydiinaya su'aashaas waxay tahay waxaad sheegaysaa fircoonkii ummadda nabi maxamed ma garanaysaa fircoonka ummadda nabi maxamed fircoonkeeda nin aad u shar badan oo gaala oo nabiga dhibi jiray baa fircoonka ummadda nabi maxamed loo yaqaan abulahab ma mid u dhow kale weeye gaal ah madaxda abu jahl weeye runtiis fircoonka ummadda nabi maxamed waxa la dhahdaa ummadda hambalyo ما شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga walaal xasan oo ku soo dhawow barnaamijka baradiintaada su'aal diini ku weydiinaya su'aashaas waxay tahay waxaad sheegaysaa cibaado qofka muslimka haduu la yimaado qofkaas la yimina aanu garanin uu isku dhibayo oo aad isugu dhibayo oo ilaahay 2 jeer uu abaal marinayo cibaadada ma garanaysaa waa cibaado marka aad isku dhibto ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu 2 jeer ku abaal marinayo waa salaada iyo sakado iyo sadaqada iyo waa soo dhaweysay horta salaada iyo waa wax kamid ah salaada midaan qofkii akhrinayay oo sunnayaasho kale ma waa cibaado akhris u baahan in la akhriyo wadducamiya يا maxay kula taadin waa ducooyinka iyo salaadaha kale aad bad soo dhaweysay in yar ayaad u jirsatay laakiin ma sha Allah soo dhaweysay waa cibaado la akhrinayo ambal Allah ku barakay soo dhaw yaa galiya kaalay soo gobde
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعة ولا عبد السلام وكسر دو برنامج خبر دين هذا سؤال ديني وكويدينية سؤال شو حيتهاي واحد شيء يسأل النبي وجوب بدن مجلس إلهي القرآن كجور النبي وجوب بدن محمد النبي محمد أفر شرو كلي الله وشيء جيب جيسبه مجلس لكن النبي وجوب بدن بقول يدور يصدق شرب مجلس كسر نقطة القرآن النبي نبي عيسى شيء لا تنشروا كلي الله وشيء والنبي بقول يلي حي صدق شرب وصار نقطة يا قرآن كمجلس ما يجع والنبي عانى والنبي رهب بني إسرائيل لا دري نبي يوسف ما نبي يوسف معها مع الأسف فنكحوا معي وحن كسينيا لكن هديت كلا كتاب قالي بن كسينيا أو كتاب كدعوين كا وتكفى إذا سندون إن شاء الله أطمن ما سنت ولا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام مقعدة يحيى عبد الله جامع يحيى كسر دو برنامج خبر الدين هذا سؤال ديني اللي دينيا سؤال شو دينيا واحد تاعي واحد شيكتا guri ku yaala samada toddobaad gurigaas samada toddobaad ku yaala waxa uu xaj taga malaa'ikta ilaahay 70000 oo malag ayaa markaa masaajidkaas ama beedka ilaahay taga carshiga raxmaanka ya carshiga raxmaanku ma guri waa beed ba laga rabaa beed maqdis dhulku ku yaala waxaan ku weydiiyay salaamu calaykum calaykum salaam magacaaga adeer yaxya waxaan ku weydiinayaa su'aasha ah nabigii sababtiisa loo qoday ceelka zamzam soo garamis biyaha zamzam nabi ibraahim waha ya nabi ibraahim waha ma nabi ibraahim waha nabi yuusuf nabi idris kugu wareegaysaa waa dhowdhowda hadad ibraahim sheegtay waa nabi kale weey isaga iyo hooyadii haajara hooyadii la dhihi jiray isaguna ilmo yar buu ahaa nabi idris adeer badska ubsid nabi ismaaciil buu ahaa allahu akbar allahu akbar ما شاء الله إلهي ما كشفين وريا إلهي ورتها صاد القادم وحاول نكسناه صاد القادم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعولة عبد اللطيف وكسر دو برنامج خبر الدين هذا سؤال ديني كويدينية سؤال شاس واحد تاعي واحد شيء يسا النبي وجوب بدن إلهي سبحانه وتعالى مجلس القرآن كحصي ده نبي موسى والنبي موسى ويا ورنتيسا ما شاء الله بقول يلي حصن شرب إلهي مجلس وكشجع القرآن والنبي وجوب بدن هي قصة وجوب بدن إلهي القرآن كوكجورة ما همبليو كتابنا والقسينية وكادي وحويا wax lagu qoray way yar ka loo baahan yar السلام عليكم adeer السلام magacaaga adeer mahdi oo ku soo dhawo barnaamijka baradintaada adeer waxaan ku weydiinayaa su'aal diiniya su'aashaas waxay tahay ma taqaana guriga samada toddobaad ku yaala ee malaa'iktu ay u xaj tagto 70000 oo malag baa u xaj taga baytul ma'muur allahu akbar war yar ka oo diintu fadhida diinta halkan ay fadhida qabso hambalyo lacagtana waa lagu siinayaa adeer ma dhigata malcaamad adigu waar waa aqoonyahan weey ninka malcaamad iyo diinta u barta soco lacag السلام عليكم عليكم السلام magacaaga adeer maxamed oo ku soo dhawo barnaamijka baradintaada su'aal diiniya lagu weydiinayaa su'aashaas waxay tahay waxaad sheegaysaa salaada lagu tukado xaramka masaajidka xaramka inta u dhiganto salaada lagu tukado masaajidka xaramka soo garamaysid baytullahi alxaraam oo maka ku yaala hadii qofka muslimka uu ku tukado salaadaas way laba laabmaysaa tiro aad iyo aad u fara badan bay ku laba laabmaysaa ma garanaysaa tirada waxa weeyaan 99 ma 99 kaliya soniga ku aad iyo aad bay u fara badan tahay tiro badan sheeg kun waa dhabar hore la dhaafayaa milyan may milyan laba gaari aad bay badan laakiin kitaab baan ku siinayaa insha Allah taala kitaab wanaagsan oo xusn muslima soo baro oo ka faa'iideysto ducooyinkan akhriso soo dhaw yar kan horto baanay adigu soo istaag
السلام عليكم عليكم السلام مقعاده موليد ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniya lagu weydiinaya su'aasha ku weydiinaya waxay tahay ma taqaanaa ducada la akhristo marka la tukanayo salaatul istikhara salaada istikharada waxa la dhahdaa salaada uu qofku ilaahay kula tashanayo marka aad rabto inaad wax go'aansato ducada la akhristo ma garanaysaa ma ducooyin badan baa la akhristaa laakiin ducada imka ma hay waa mid uu nabigeena baray calayhi salaatu wasalaam qof kasto muslimana waxa ku boorinaynaa inay ducada bartaan oo marka arrin ay go'aansadaan inay akhristaan dib malaha kitaabkan ku siinaya insha Allah ta'ala bedel su'aal mar hadii waa nasiibkaaga Allah yibaarik fiik jazakallahu khair waska nasiib waxani assalaamu alaykum salaam magacaada suhayb ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniya lagu weydiinaya su'aasha ku weydiinaya waxa weeye waxa jirta 70000 oo malag 70000 oo qof baa waxay galayaan jannada xisaab la'aan iyo cadaab la'aan ilaahay inaga yeela aamin dhamaantiin 70000 ku nabigu wuxuu yiri sifay leeyihiin sifada marka laga helo ayay sidaas jannada ku galayeen la xisaabinin ayagoon cadaab horena aan marin ilaahay naga yeela kuwa ma garanaysaa sifada leeyihiin may dib male ha tagin waxa lagu siinaya kitaabkan baa lagu siinaya qambaliyo waaye السلام عليكم السلام magacaada khadar oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniya lagu weydiinaya su'aashan ku weydiinaya waxay tahay waxaad sheegaysaa insha Allah ta'ala qiyaas ahaan fidyada ma taqaan horta fidyada la bixiyo ramadaanta qofka marka uu xanuunsanayo qof weyn oo xanuunsanaya مثلا waayeela ma soomi karo wuxuu bixiyaa raashin ma garata aayada quraanka ba sheegaysaa wa ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskiin waa in cunto quudiya dadka marka cuntada la siinayo maalintii inta kilogram inta ma garanaysaa 15 kilogram may aad uga yartay 15 lima ha tagin kitaabka soo suuf anaga sheegay yar kala durka gaari saakala durka السلام عليكم عليكم السلام magacaada xamse aadan cali xamse ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aasha ku weydiinaya waxay tahay fidyada inta la bixiyo waxa weeye 2 gram 2 gram waxay tahay mataqaanaa wax yar 2 kiilo ma 2 kiilo ka yar 2 gram galaanka 2 gram galaanka dadku badankoodu ma wada fahmayo mid kale uu kala duwan yahay qof ya 2 kiilo 2 kiilo way ka yartahay dhimala aad isku dayday laakiin isku day wanaagsan soo dhaweysay aad soo dhaweysay ha hambali ho soo dhawo sheekh dhimala wada gaadhaysaa u kaadiya ha qof walba la weydiinaya waa nasiibka qofkii ku soo baxayna assalaamu alaykum alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magaca walaal maxamed xuseen baa la yiraahdaa maxamed xuseen oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniya lagu weydiinaya su'aashaas waxay tahay waxaad sheegaysaa salaada lagu tukado beedka ilaahay xaramka masaajidka xaramka salaada lagu tukado inta u dhigmayso wuxuu dhigmaysaa walaal kun salaadood taas waxa weeye waa salaada lagu tukado masaajidka nabiga waxa u dhigantaa kun waa sax weey laakiin masaajidka xaramka aad bay uga badan tahay kunka waa masaajidkii ugu horeeyay ilaahay uu dhisay ilaahay dartii loo dhisay waa run laakiin kun salaadood masaajidka u dhigantaa waxa weeyaan waa masaajidka nabiga ee Madiina kun ka xaramku aad uga badan yahay kunka marka laba ma noqonaysa laba kuma noqonaysa ma xumid mar hadda tiri waa laba laab laakiin way ka sii badan tahay aad bay uga badan tahay labada kun ho ha tagin ودي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله magacaada محمد oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniya lagu weydiinaya su'aashaas waxay tahay ilaahay ku fudaydiyo waxaad sheegaysaa Allahumma salli ala sayyidina rasuulillah nabigeena sallallahu alayhi wasallam nabi Muhammad markii uu rasuulka uu noqday imise jir buu ahaa ma garanaysaa ma lix kaliya jir markii uu rasuulka laga dhigay markuu nabiga noqday ee malakii u yimi ee quraanku ku soo degay imise jir buu ahaa 35 jir 35 waad isku day Fariid soo dhaweynayay lagu siinaya kitaabkaaga lagu siinaya ukaadiya waxa weeyaan ukaadiya horta hal kelmad baan dhahayaa
waxa weeyaan waxan waa wax diiniya walaalayaal ilaahay barakeey qofna hadhihina uu dhacay waxa way qof walba hadduu isku day uu guuleystay waa qof guuleystay arrinta ka dagaalamana waxa weeyaan in ilmaha yar maskaxda laga dilo ama la niyad jabiyo wuu gartay kitaabkiisana waa la siinaya xitaa hadduu garan waayo laana uu isku dayay marka min fadla ku marnayaan maqlan kelmadda uu dhacay kelmaddaas waa kelmad aad u khatar badan allah idin barakeey السلام عليكم هذا عليكم السلام مقعد هذا محمد oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniyaad lagu weydiinaya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku salay nabigeena sallallahu alayhi wasallam nabigeena alayhi salatu wasalaam imise jir buu ahaa markii rasuulka ilaahay ka dhigay 12 markuu rasuulka uu noqday rasuulka 25 uu ka weynaaday 25 laakiin isku daday fariid wad baranaysaa soo si kitaabka soo maxamed wad baranaysaa hada السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعولا رضوان بلدا رضوان oo ku soo dhawo barnaamijka baradiinta hada su'aal diiniya lagu weydiinaya su'aashaas waxay tahay salaada lagu tukado masaajidka ilaahay xaramka inta u dhiganto oo dhigmata 140 shay 140 shay ma 140 ka badan tahay kumanaan baa xitaa la sheegay ka sii badan tahay walaal kumanaan su'aasha garamay su'aal kale yool ma nasiibkeeda taas aan rabaa in la furo soo si sheekh kitaabka soo si السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaal ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniya ku weydiinaya su'aashaas waxay tahay saxaabigii nabiga kaleey salaatu wasalaam ee qiraa'adiisa markuu quraanka uu akhriyo nabiga uu yiri waxa weeyaan mizmar min mazamiri ali daawud nabi daawud sidoo uu akhrin jiray quraanka oo kale ama kitaabkiisii ayuu akhriyaa saxaabiga ma garanaysa وصحابي موسى ابو موسى ورنتيس ابو موسى ما راعي وتصحسنت ابو موسى وان كسينيا هديداده لكن اسكو دا انت كلي راعي جري ابو موسى وصح ابو موسى الاشعري با لا دهي جري ايا لا دهي جري واد صحده الهي كبركيو جزاك الله خيرا صحابيغا waxa la dhihi jiray ابو موسى الاشعري صحابي aad u cud wanaagsan buu ahaa sidii nabi daawud oo kale waqtin jiray kitaabka ilaahay hanbaliyo wala way السلام عليكم هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعد عبد السمد oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniya lagu weydiinaya waxaad sheegaysaa salaada lagu tukado beedka ilaahay ee xaramka inta salaadood ay u dhigantay ma garanaysa 100 salaadood maxay u dhigantaa 100 salaadood Allahu akbar ninkaas furay Cabdi Samed baa furay salaada marka waxa way lagu tukado beedka ilaahay ee xaramka waxa u dhigantaa 100,000 oo salaadood Allahu akbar ilaahay yahay waa arsaaqo inaan ku tukano masaajidka xaramka aamin dhaa hanbaliyo halkana waxa ka sheegaya kaftan ban ka sheegaya arrin kaftana ninba wuxuu maqlay in masaajidka salaada maaragtay lagu tukado xaramka ay u dhiganto 100,000 oo salaadood dabadeedna wuxuu yiri 10 sano anigu salaad tukan maayo kaasal la yaabo leeyahay war maxaad taariikh salaad mid noqonaysa wuxuu yiri waxa igu filan hal salaad oo aan ku tukado beedka ilaahay xaramka intii 10 sanadood beedkaas ku soo gudaya waa aqligiisa ninkaas السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعد قاسم oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada insha Allah waxaan ku weydiinayaa su'aal wax sheegaysa cibaadada qofka muslimka markuu la yimaado ama uu akhriyo qofkii la yimi ee isku dhibaya ilaahay uu laba jeer abaal marin doono ajraani laba jeer buu ilaahay abaal marin oo siinaya ma garanaysid في الدنيا والآخرة آخرة أيو إلهي لبا جرى بالمرني وعباده ووح عباده إلهي يقول دوانه إلهي تشعل يهي تبارك وتعالى مركا لبا جرى مثلا أنا أقول أدركت تصالح أنا ما أدرك هو أدركت هاي لكن هو نسكت ديوان أخريه هاي فانسي قافك لبا جرى ما حيك لي ده إلهي لبا جرى بالمرني لبا جرى بوليه وهو يتعتع سوى يكون أدركت وحول له أجراني لبا جرى بالمرني marka ay ku adagtay ku celceliyeen baa ta sheeg waayo waxa cibaadadiis waa cibaadada quraanka marka uu ku celceliyo quraanka quraanka way waa runtiisa waa quraanka waa akhrinta quraanka qofku xitaa isagoo ay ku adag tahay hadii uu akhriyo waxa la siinayaa maaragtay laba jeer baa la abaal marinaya waa dhiirigelin nabiga inoo sheegay kaleey salaatu wasalaam macnaheedu waxay tahay xitaa hadaanad quraanka xariif ku ahayn si akhri kitaabka laba jeer baa abaal gud helaysaa assalaamu alaykum alaykum salaam magacaada maxamedow ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada insha Allah magacii nabigana wad wadataa waxaan ku rajaynayaa inaad garato su'aashan
dadka jannada ku galaya xisaab la'aan iyo cadaab la'aan wuxuu dhahaa nebigu waa 70,000 oo qof 70,000 70,000 baa xisaab la'aan iyo cadaab la'aan ku galaya ma garanaysaa 70,000 sifadii leeyihiin ama waxay ku sifayseen camalka la yimaadaan mataqaana isku dayada fariid wad garanaysaa waxbay ku sifaysan yihiin 70,000 waxay ku sifaysan yihiin isku dayada fariid kugu wareegaysaa hore soo maad maqlin haye oo ku sugaya toddobaatan kun weeyaan oo ummadda nebi maxamed ka mida jannada waxay gelayaan iyagoon la xisaabinin oo aan la cadaabin bay saa ku gelayaan jannada sifay leeyihiin markaa waxbay ku sifaysan yihiin waxbay la yimaadeen camalay la yimaadeen qaar ka mid oo noo sheeg jannada jannada gelayaan jannada kuwa adagtaade jannada iyo dib malaha isku dayday insha Allah su'aashaas waan furayaa si ay dadka muslimiinta oo dhan uga wada faa'iideystaan 70,000 horta Ilaahay naga yeelay inaga iyo waalidiinteena waxa weeye jannada waxay ku galayaan iyadoo aan la xisaabinin iyagoo aan maaragtay la cadaabin waxay ku sifaysan yihiin kow marka hore baasaysi wax la yiraahdo ma sameeyaan la yatadayaruun baasaysigu waa in qofku wax baasun uu ka sheego maaragtay baasaysi baa la yiraahdaa sidoo kale waxa uu dhahay nabiga kaleey salaatu wasalaam wala yartaquunka waxa weeye waa qof cilaajka u fiirsada ana afartaasi feeleeyeen ma basaasaystaan waxa weeyaan ruqyana uma yeedhaan oo ma dhahan cilaajidan tagaya iyo meelaha isaga isku tufa egtaasa khayr badan qofka muslimka inuu isku tufo ya ismana gubaan jidhkooda ma gubaan waxa weey ilaahaydana way tala saartaan afartaasi fo qofkii laga helo wuxuu ka mid noqonayaa insha Allah biidnillah 70,000 jannada ku galay xisaab la'aan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan magaalada Sheekh waa magaalo barakaysan waana dad aqoon-yahana إلهي سبحانه وتعالى هيدا بركة يملا شوكتان با إلهي سبحانه وتعالى هل كاسان نقول الله جنة الله نقول بيا من ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال عرورتي أقونت أهيد إن هو يدود هل كان أي واحد كويس تا مهردن يا ستا مهردن وذاركتان وحسا وبدن ويلان هل كان هيلب كأي كوي بيسا مركا الحمد لله إلهي خير كسيو إلهي سبحانه وتعالى إسلام أو محسنين أيام مارتي قويس كان سو عاوية إن شاء الله وحي لو سو عاوية أيام ما أنت قدون سين دونا إن شاء الله تعالى نلا داوضة ولا ليال إمكا وحن شوقنا سيلدا لغو يبيو أريغا يحولها وحن ربنا إن نسو يبسنو أما سو قدنو حولو إن حولهاس أو مركا وحويان لوغو داقي إن ما مدر بشي عرورتا أغونتا halkan waxaad arkaysaan arigii iyo xoolihii waxaan iibsanaynaa 10 neef oo ariya kuwaas oo dabcan isugu jiri doona ido iyo riyo arigii iminka waa soo iibsanay gaariga ayay saaran yihiin 10 neef weeye dusha sare waxa kale oo noo saaran cawskii ay cunayeen arigaasi waxaan geynaynaa gurigii ay deganayd maamadii waa tan arigeedii way haysataa ma sha Allah arigina wad aragtaan waa ari u badan didig kuwaas oo mustaqbalka laga yaabo inuu u tarmo waxa mahad iyo maarta amaanba iskale iyo duco gabadhii walaasheena ahayd ee soo caawisay oo la dhada Xaawo Guuleed iyo wiil la dhada Xuseen iyo dad kale oo muxsiniina oo soo caawiyay hooyadan oo ka bixiya ariga tan iminkana waa tan hooyadii oo ka mahad celinaysa wixii ay dadka muxsiniinta ah walaaladeen ah ay u qabteen تدشى عرورتا أقونتا هاي مقعيدا waxaa la dhadaa Leyla Sheekh Cabdi أو عبد الشيخ عمر إلهي سبحانه وتعالى خيرها كسيو waxaan halkan uga ducaynaynaa dadkii walaaladeena ahaa muxsiniinta ahaa maaragtay wax la soo baxay oo hooyo Leyla soo caawiyay hooyo Leyla ayaan maaragtay insha Allah u dhibi doonaa maanta sayladan tagnay waxaan soo iibsanay 10 neef oo ariya إن شاء الله تعالى وحوجا جناعسي كده أي كوسي دريالي دون تهدي لها كده بإذن الله هو الليلة وحدود دعائنا إن شاء الله تدين وحلا صباحي ولا لدينا أها وجوه الرئيسو حاوة جوليد إن شاء الله تعالى السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا مدى مسلمين تودن وحن سلام يا حاول قولت انت يوه الرئيسو يا إسلاما يا وحلا صوب حضي عاوسي أقونتا يريرين هيو إلهي بامرك هورم هذا له إلهي وحنا idinka baryayaa halka aad ka soo saarteen ee iga soo dhiibteen in Ilaahay baraka fara badan iyo khayr fara badan idin galiyo biidmillah sideed albaab ee jannada in Ilaahay idin balaqo idinka iyo Cabdicasiiska ay keenay hawsha ila wada ila dhibaatoonaya iyo idinkii soo dhibay dhamaantiinba waxa uu guuleedo horeyso إلهي وحنا دين كبر يا إن سؤال شقفر جاي سكرات كويدن لبن جنة فردوسين إلهي دين جايو سداد الباب جنة بين ربي دين بالغوا قشان شيت كسر هذا إلهي ندين لبيا رأيه وحويا وحايس السجال عرورة أجونا أنا قلنا وان حنوسنا يا وان سكبوكا وحويا عيد إلى مع عوسه إلهي مويانه إيمان كان قبائل إيمان هذا يقول إسكبر يشري إلهي وكا برياضة يدي يا مسلمين توي صوت ريدا يقوم محيطي ما أنت يقول كاني معنا مركو عبد العزيز من السيرة دولة تبان كوي بنايا يعني فرحة إن حد بيقول نقطي أو إلهي يقول يهي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إلهي ما مهد واندين مهد علينا يا واندين مهد علينا يا إلهي نريد بركايه خير حسنات بدن إذن سيو أيان إلهي إذن كبر يا فرحة أو قد ما أنت يوم كاتش معنا تشوقنا ولا الدنيا إنتان شوقي فرحة عين كاس إما صومرين ده الدنيا ده نيم كوبا الراجون هنا عبالة هين ونهل في عن لهين وإلى عاوية وحشقة تجيل هين أيان هايستا حلا يتمد بالليل وحلا جينا يا بوردن وين برجيستا كسكوي برعير مال إلى بوردنا نيم بالا لا هذا وعلماء كمان مركز حبل ما يقول $50 بنا نقدر سنة لا بتنك كلا الكيل لوجا كينا يا إلهي بامبلون كينا ما نره توتا إلهي كينا واندين مهد نقيا إلهي بام مهد إذا كان واندين مهد علينا خير حسنات بدن باندين رجينا يا هلك كسو صارت نوح بركيسنا الله يدين قليو إلهينا سبحانه وتعالى وحيله إلى قبريه جنة وهالرئيسية عافمات تامة يحسي وناكسن إيو آخر إلهي جنة الفردوس يدين قليو إذا دباتا يسأرق يعني إلهي يدين كبريه يا سيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhanka kale walaalayaal haddii aad xasuusataan maamadaas ama islaanta waayeelka ah ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad taama allaha siiye waxa weeyaan maamo aan hadda ka hor aan maaragtay lacag guddoonsiinay oo barnaamijka baradiintaadu uu markaa ka shaqeeyey dad walaaladeena oo muxsiniina oo khayrka jecel ayaa maamadan soo caawiyey sidoo kalena kafaalo qaatay oo waxa weeyaan biilkooda si billa ah ugu soo diri doona نو هالكن وجمع علينا قف كستا أو معمدن سعوي أما أسود دعية إلهي سبحانه وتعالى جنة الله يدين كيو تنبيجنا الله دافو وحكلا أو مهد يماموس إسكاله ولأنو دعينا قبل كلا أو ولاشنا أو المجعد لده حاوى يقبل كلا ولاشنا ولده شكري أيام مركي أركان معمدن وحيدهن معمدن لولك أيه شفتا وحن أسو يبيننا سرير ونكسن furaash ama joodari adag oo ay maamadaasi ku fadhiisato sidoo kale barkimooyinkii iyo gogol wanaagsan meel wanaagsan in ay maamadaasi inta cimrigeeda ka hadhay ay u seexato alxamdulillah arrintiina way suurto gashay waxaanu gudagalnay markii kadib aan lacagtii guddoonnay oo dadkii muxsiniinta walaaladeena ahaa lacagtii ay soo direen inaan soo iibino sariirtii wanaagsanayd iyo furaashkii iyo joodarigii iyo markaa qalabkii wanaagsanaa ee ay maamadaasi ku seexan lahayd daawasho wanaagsan iminka waxaa la rogayaa waxa weeyaan waa sariirtii cusbayd oo ah sariir wanaagsan oo waafiya oo maamadaasi ay ku seexan karto maasha Allah tabaarakallah ayaa maaragtay iyadoo oo cusub la rogayaa gurigoodii ayaa la gelinayaa kadibna waa la isku rakibayaa waxaad marka la isku rakibo dusha laga saari doonaa insha Allah ta'ala furaash weyn oo adag oo aad iyo aad nooca ugu wanaagsan ah alxamdulillah iyo markaa barkimooyinkii iyo gogoshii ama go'i lagu huwinayay iminka waxaad ila daawataan maamadii oo ka hor intaan maaragtay furaashkeedii iyo sariirtii wanaagsaneyd ee muxtadka islaamka ee muxsiniinta ah ay ugu deeqeen ka hor intaanay maaragtay ku fadhiisan ama aanay ku seexanin ayada oo u ducaynaysa dadkii walaaladeeda ahaa ee muslimiinta ahaa ee u jirnaxay ee u naxariistay ilaahay ayagana ha ugu naxariistaa dunyada ee nala daawo
السلام عليكم أيي ما في عنتها أيي أيي وحويا وحن كودنا سريرتي مقرتي ما شاء الله يا فراش ما شاء الله يا مارتي بركموين كي يا قيبة ما شاء الله مقرتي أيي وحكو صدري لبا قبضات ما شاء الله قبل وحلا هذا حاوى حاوى عبد الرحمن شرع gabadh kalena shukri baa la dhahdaa ma sha Allah midi waxay ku soo dirtay $320 ilaahay ka abaal midna 100 kale ku soo dirtay ilaahay ka abaal mariyo marka waxaan ku soo iibinay oo ku soo gadnay sidii ay noo sheegeen sariir wanaagsan oo fiican furaash weyn oo adag oo joodari weyn ah iyo barkimooyinka aad ku seexanaysay iyo go'i wixii oo dhan waa la soo habeeyay ilaahay ka abaal inankii baa imika ku hagaajinayo ku ka rakibaya hadii ilaahay ka dhigo waxaad u ducaynaysaa labada gabdhood ee khayrka badan ayaad u ducaynaysaa iyo xasanaad Allah u ducaayay ayayo cimri dawli ila Allah idin siiyo saaqada waasa Allah idin ka dhigo cimriga dawli ila Allah idin ka dhigo awlaada ilaahay idin barakeeyo xooga ilaahay idin barakeeyo risqa ilaahay idin barakeeyo inta biisoo bifteena rabbi boqolaab idin ka dhigo laba malyan laab ilaahay idin ka dhigo laba malyan laab ilaahay idin ka dhigo ilaaha kariimka ilaaha kaalmeeya ilaaha waxba loo sheegin ilaaha waxba laga sheegin halkaad ka soo saarteen khayr iyo xasanaad Allah idin geliyo waxsan Allah idin geliyo ilaa culimada ay keentay adigu sahawteena khayr iyo xasanaad Allah siiyo awlaada ilaahay awlaada barakaha ugu xoogooda ilaahay barakaha ugu sawjooyinka ilaahay barakaha ugu waxsan Allah idin siiyo aakhirana fi janno istinkala fi nimca Allah idin siiyo ilaahay idin ka abaal mariyo way ka faraqaadeen rabbi idin ka faraqaato way murugteen rabbi idin murugo way kaalmaysan rabbi idin kaalmeeyo ayeeyo waxsan barakada Allah idin siiyo maamadii sida ay idinku ducaynayso ducada wallahi wax loo dhigaa ma jiraan waa qof waayeela waa qof maaragtay xanuunsanayo waayeela ducadeedaas wax ka qaalisan oo maaragtay maanta adduunyadan jooga ma jiro inuu qof muslima uu ku duceeyo oo baahan ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii wax la soo baxay ducadaas maamadaasi ay u ducaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u aqbalo waad farxad geliseen farxadaad farxad geliseen mid la mid iyo mid ka weyn ba ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyo aakhiraba Allah idinku farxad geliyo dambigiina iyo dunuubta waalidkiin bana ilaahay ha ku dhaafo ilaahay subxaanahu wa tacaala raalliha idinkaga ahaado sadaqada aad la baxdeen wax ka khayr badan ilaahay idinku bedelo midna ku bishaaraysta waxaad baxsateen ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiba u baxsateen ma khasaaraysaan mana naaqusayso ma naqasad sadaqatun min maal sadaqadu ma naaqusiso maalka ayuu dhahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam taana waa waxaan goobjoog u nahay oo xoogaal u nahay oo garanaynan ognahay waxa aad la baxday wax ka badan baa ilaahay ku soo gelinaya tabaaraka wa tacaala maanta waan ku faraxsanahay maamadaas sidii loo caawiyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida aad anaga noo farxad geliseen maamada gurigan joogta u farxad geliseen ilaahay subxaanahu wa tacaala farxad iyo sacaado iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan idin ka baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jannooyinkiisa raxmaanka inuu ilaahay idinku manaysto dambi dhaaf ilaahay idinku manaysto subxaanahu wa tacaala ubadka ilaahay idin barakeeyo arsaaqada ilaahay idin barakeeyo ooriyaha iyo xaaska iyo sawjka iyo sawjaadkaba ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku xafido ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii toosnaada adduunyo aakhiraba Allah idinka yeelo annaguna waan ku faraxsanahay khayrka waan ka qayb qaadanay waxa way wax khayr oo laga qayb qaato oo maaragtay aad qayb ka noqotid waxa ugu wanaagsan qof muslim oo baahan inaad u gargaarto ilaahay subxaanahu wa tacaala anagna miisaanka xasanaadka Allah noogu daro ma sha Allah aad baan faraxsanahay jazaakumullahu khayran ilaahay idinka abaal mariyo asawaykeedu nawaayo ayeeyo ka waran sariirtan ma ku qancisaaye iyo furaashka waad ku qanacsan tahay ما شاء الله إلهي هيدنك أبال مري إلهي هيدنك أبال مري إلهي هيدنك أبال مري وهذا قرحي سنة ربي هيدن قرحي ويدن وناش سنة ربي هيدن وناش أولاد إلهي دين بركي خسق إلهي دين بركي عافمات إلهي دين بركي ما شاء الله
aad iyo aad banay annaguna ugu faraxsannahay ilaahay subxaana wa tacaala adigana caafimaad taama allaha ku siiyo ilaahay subxaana wa tacaala dadkii wax la soo baxayna ilaahay ha ka abaalmariyo maasha allah waad aragtaan walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala jasahooda jannada allaha ka yeelo jawsahooda ilaahay subxaana wa tacaala jannada ha ka yeelo sariirtii wataas iyo furaashkii alxamdulilah iyo go'ii iyo barkimooyinkii iyo qalabkii ay ku seexanaysay maamada ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo qof kasta oo ka qayb qaatay gaar ahaana gabadha la dhahdo xaawo axmed shire gaar ahaan gabadha la dhahdo xaawo axmed shire iyo gabadha kale la dhahdo shukri oo maaragtay iyagu soo dhiibay lacagaha oo maamadan soo caawiyey ilaahay subxaana wa tacaala ha ciseeyo aamiin aamiin ilaahay barakaha u geliyo هذا كسر صارين فبهو يا بركة الله ينقش ويعاوي شيئا فبها ينعاوي ويملك شيئا فبها ينملك ويملك شيئا فبها ينملك